السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها يوم ميلا جوكتان بوايد سلامي وحن ربا مانتا إنان كهذا الله صدح قضب إن شاء الله تعالى قضب كوغوه الرأية وحن ربا رئيس الوزراء الصومالية محمد حسين روبلي علامات يتلمامو كم قضاء إنان إذن لو ذاقو تلمان توغوه الرئيس وحاوي ليس وجهه وجه كذاب wejigiisu kama muuqdo weji qof beenaale ah arintaas waxaan u leeyahay walaalayaal rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam markuu magaalada Madiina soo galay dadkuna ay ku soo carareen oo loo wada yimid waxa kamid ah dadkii u yimid nin saxaabi ah oo caalim ahaa oo xabri ahaa oo yahuuda ka tirsanaa oo loo jiray Abdullah ibn Salam waana qisada uu ku soo islaamay wuxuu yiri markaan arkay wejigiisa ayaan gartay inuusan wejigiisu weji beenaale ahayn idan wejiga Xuseen Rooble qof kasta oo fiiriya weji beenaale kama muuqdo arinta labaad oo raba inaan sheego waxa weeye waxa ka muuqanaya hadalkiisa raxmad iyo soo dhaweyn ummadda wuxuu leeyahay mar walba dhageysato walaalayaal arinta ibn al-qayyim rahimahullah ba isaguna wuxuu leeyahay calaaqa ama xiriir baa wuxuu ka dhaxeeyaa magaca iyo qofka walidaalika rasuulku sallallahu alayhi wasallam magacyada xun sida xarbi oo kale iyo dagaal iyo markuu uu bedeli jiray oo saalim buu ku bedeli jiray sahula mar uu yimid qisadii sulhul hudaybiyah ninkay quraysh soo dirsatay oo markuu yiri magaciisa weydiiyay wuxuu ku yiri sahula amrukum arintiini wayba sahlanaatayba marka magaciisa arinta labaad oo rabayna ka qaato waxa weeye Rooble roobkuna waa matar waa roob matarkuna waa arrahma iyaduna mar labaad marka iyadana waxa ka muuqanaysa raxmad iyo naxariis ayaa ka muuqanaysa arinta saddexaad oo ka muuqanaysa qof walba arka waxa weeyaan tawaadu iyo hambalnimo waa qof mutawaadic ah oo sida muuqata kibir ka muuqanin oo isla weyne aan ka muuqanin oo xitaa magacan weyn oo ra'iisul wasaaraha oo la saaray aan ka muuqanin inuu la kibraayay aan ka muuqanin taasna rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam wana sifaadkii rasuulku uu lahaa iyo tilmaamuhu lahaa wama tawaada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah qofkii ilaahay u tawaaduca qof ma jiro alla u tawaaduca hambal u noqda illa ilaahi ba kor yeelaya iyadana waxaan rajaynaynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu sifadana ay ka muuqato sida aan u aragnayna ay tahay oo ilaahay baan weydiisanaynaa inuusan dhanniga naga inuusan beenaynin haddaba walaalayaal waxaan rabaa inaan idhaahdo oon ka codsado oon ka dalbo ummadda Soomaaliyeed xukuumadka iyo shacabka iyo siyaasiyiinta mucaarad iyo muxaafad mu'ayid qof walba mashruuca uu wada iyo barnaamijka ra'iisul wasaaraha hala taageero aan taageerno waxaan u leeyahay inaan ka baxno azmada iyo dhibaatada Soomaaliya hadda haysata ay ka baxdo waxaan u leeyahay inuu xal ku soo degdego waxaan u leeyahay inaan kulligeen waxa la rabaa waa doorasho waa in nabad la noqdo waa in la doorto hal la sahlo oo shuruudaha jeebadaha laga soo bixi iyo waxyaabaha durba la xidhxidhi doono hal daayo aan mashruuciisa taageerno qalbi fiican aan ku soo dhaweyno ummadda Soomaaliyeed mar labaad xukuumado madax siyaasiyiin dadweyne qabaa'il qoysas waxaan rabaa inaan idhaahdo bishii Ramadaan baan ku jirnaa 10kii u dambeeyay baan ku jirnaa samadu way furan tahay cafiga ilaahay aan doonano oo ilaahay si uu noo cafiyo inaguna aan iswada cafino cafiga waxa la yiraahdaa xaqa aad lahayd xitaa xaq adigu aad leedahay inaad ka tagto adigu awoodi kara inaad aragoosato ama inaad qaadato laakiin ilaahay darti baad uga tagaysaa ninka siyaasiga ee isla waxbaad noqon lahayd ama waxba ka maqanow ilaahay darti maanta uga tag beesha iyo qoyska iyo qabiilka aaminsan in lagu xadgudbayo ilaahay darti uga tag si ilaahay adnagana noo cafiyo waxaynuna u socdo ummaduna horukac iyo wax qabsi ay u wada socdaan baan ka dalbayaa dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan aad baad u mahadsantihiin wajazaakumullahu khayr wa barakallahu fiikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh